بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدوميها أقل كسرة مدن عبد حاشي عبد الله رئيس وزراء كحيين كحكومة الفدرالية الصومالية ورباهنتا دمانتين صباح ونكس. وحن ما أنت كفر أحسننا هاي إنه هل كان يسكون نمد قدوميه أقل كسرة رئيس وزراء كحيين كحكومة الفدرالية iyadoo lagu soo afjarayo waxoogaa isfahamwaaya oo bariyahaasi jiray oo la xiriiray qabsoomidda doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka gaar ahaan kuraasta xildhibaanada gobolada waqooyi Soomaaliland. waxaan halkan idinku akhriyi doonaa insha Allah heshiis ay gaadheen labada xubnood ee ugu sareeya siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Soomaaliland. heshiiskuna wuxuu dhacayaa sidan. bismillaahir rahmaanir rahiim. gudoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdilaahi iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar markii ay tixgeliyeen wadajirka dadka midnimo doonka ah ee ka soo jeeda gobolada waqooyi Soomaaliland iyo danta guud ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed ugu jirta qabsoomidda doorashooyinka waxay ku heshiiyeen in la soo afjaro khilaafkii labada dhinac u dhaxeeyay ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka kuraasta labada aqal ee xildhibaanada ka soo jeeda gobolada waqooyi Soomaaliland. 2 in la mideeyo gudoonka iyo xubnaha guddiga maamulka doorashooyinka heer Soomaaliland iyadoo garabka gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdilaahi ay qaadanayaan gudoomiye ku-xigeenka guddiga iyo madaxa amniga iyo logistikada. 3 in la soo afjaro isku xaysigii iyo abaabulkii u dhaxeeyay siyaasiyiinta gobolada waqooyi loona midoobo hirgelinta doorasho hufan oo aan daahitaan lahayn. 4 in sida ugu dhaqso badan loo gudagalo hirgelinta doorashooyinka kuraasta labada aqal ee xildhibaanada ka soo jeeda gobolada waqooyi Soomaaliland. heshiiskan waxa lagu gaaray magaalada Muqdisho 5 bisha 9 2021. heshiiska hadda ayay insha Allah taala gudoomiyaha iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenku ku saxiixi doonaan halkan kadibna waa la idin la wadaagi doonaa. intaas kadib waxa ku xigi doona kelmad kooban ay oran doonaan mas'uuliyiinta hareeraha fadhiya gudoomiyaha iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenku waxa insha Allah taala heshiiskan daba socon doona kulan weyn oo ay iskugu iman doonaan siyaasiyiinta waxgaradka madax dhaqameedka ka soo jeeda gobolada waqooyi Soomaaliland maalinta Talaadada ay bisha 9 tahay 7 kaasoo ka dhici doona insha Allah taala hoteelka Dikaale si ay dadku iskugu cafiyaan la iskugu laab xaadho isla markaana ay uga dhalato niyad samaan buuxda oo u dhaxaysa dadka ka soo jeeda Soomaaliland. aad iyo aad baad u mahadsantihiin.